aaladaha la isticmaalay social media sanadihii dambe waxaa kusoo kordhaya dhaqamo ku cusub marka loo eego Soomaalida iyo waliba sidoo kale habdhaqanka dhalinyarada ee ku nool wadanka ama qurbaha intiisa kale kuwaas oo kuwa ugu badan ee laga diiwaan geliyo rikoorada xun. maanta daawadayaal muuqaalkeena iyo falanqeyn ku saabsan waxa la eegay gabar ka soo jeeda Soomaaliya laakiin guursatay nin u dhashay wadankaas Vietnam. talow maxaa dhex maraya muuqaal ay doobtay gabadhan oo aad moodo inuu ahaa mid ay ugu talagashay inay ku baahiso boggeeda ama barteeda YouTube-ka. hase yeeshee muuqaalkaas ayaa muujinayay ilaa 8 fariimood aan ka diiwaan gelin oo anshax xumo u badan kuwaas oo ay ugu talagashay in Soomaalida inteeda kale ay daawadaan garaan saaxiibada ku xiran aaladaha ay isticmaasho ee YouTube-ka iyo sidoo kale aaladaha kale social media. gabadhan oo magaceeda aan u bedelay Xamdi sababo jira awgeed ayaan soo qaadan doonaa muuqaalkina maanta. waxa uu noqday mid ka mid ah muuqaaladii ugu hadalhaynta badnaa ee anshax xumada ah ee lagu baahiyay aalada YouTube-ka iyo social media. gabadhan Soomaaliga ah ee Soomaaliya ka soo jeeda hase yeeshee guursatay wiilkan dhalinyarada ee ku dhashay wadanka Vietnam. kudhiisu wiilku waa uu jaraynayaa marka muuqaalka laga duubayo ma jeclaysan sababta waxa uu sameynayo iyo muuqaalka ayaa ah waxaan isku dhigmin waana sababta oo kudhiisu uu indhaha taagtaagaya isagoo waliba wax badanna muujinaya cabsi ah. Soomaalidu maalmaha dambe aalada la isticmaalayo social media waxay u noqotay kuwo siyaabo kala duwan iyo qaab walba u isticmaala. dadka qaarkood ayaa u isticmaala sidii aaladan ay ugu noqon lahayn dad caan ah magac iyo dhaqaale badan ka sameeya halka kuwa kan ay u isticmaalaan only inay iskaga madadaalaan oo ay ku baashaalaan. laakiin madadaalada iyo baashaalka ayaa mararka qaarkood waxay noqotaa kuwo aan laga fiirsan muuqaalada la soo gelinayo maskaxaan ama tafsiirahaan aan tafsiir badan la marin muuqaalka ama aan laga fikirin saameynta dambe muuqaalkaas iyo waxa uu keeni karo. muuqaalkeena ayaan ku eegi doonaa sheekada gabadhan. halkan waa boggiina rasmiga Facebook-ga share like grey follow noo sii raaci qaybta hoose ee commentiga ayaan aragtidaada noogu wadaagi kartaa taxanaha sheekooyinka iyo muuqaalada halkan aan ku baahinayno. gabadhan Soomaaliga waxay guursatay nin u dhashay wadankaas Vietnam. muuqaal video anshax xumo ah iyana iska soo duubtay iyadoo ninkan ajnabiga si toos ah u dhunkanayso waliba muuqaalka ay ku barayso waxa loola jeedo dhunkasho ama muuqaalka ay gabadhan Soomaaliyeed ay ku soo baahisay aalada social media ayaa waxa u badan dhaqan xumo iyo waliba fal aan fiicneen oo dhaqanka Soomaalida qayb ka ah. ninkan Vietnamka ah ayaa baraysa sida loo dhunkado sida la isku shumiyo sida la isku dhuuqo waana muuqaal mararka qaarkood aad moodayso inuu yahay mid aan ku habbooneyn aaladan laakiin haddii yihiin dad isqaba sifo walba iyo wado walba ha isku qabaane in ay qarsadaan. waxa ay ku qasabtay inuu dhunkado oo ay shumiso asna uu shumiyo si live ah waliba iyagoo iska duubaya muuqaalka isku baasheenaya ama isku shuminaya ama istimaac sameynaya. halka ninka Vietnamka ah oo ka xishoonayo kaamirada laga duubayo xilliga uu dhunkanayo gabadhan Soomaaliga ah balse uu qabo. gabadhan Soomaaliga ayaa indha adeeg muujinaysa iyada oo waliba rabta in kaamiradu la sii wado oo wax walba la duubo waxayna muujinaysaa indha adeeg. qayb ka mid ah muuqaalkan aan soo qaadanay anaga oo inta badan muuqaalka gabadhan aan u soo qaadanin anshaxa dhaqanka Soomaalida anigoo eegayna ayaan soo qaadanay qayb yar oo ka mid ah muuqaalka gabadhan. Obviously right here. That's a bit of like a watermelon type taste. Okay, take a guess. Bubblegum? Tastes like Hubba Bubba. You ready? Yeah, I'm putting it on right now as we speak. I put a lot on. Sorry, this chair is making noises. Cherry. Chair keeps making a noise and it's not. I'm not farting, I swear. I can't tell. Really? You want another try? Yeah.
You're smelling. Okay. I'm ready. Now this tastes like cotton candy. Yep. You have 2 more tries. And there are 2 more chances, 2 more kisses if you want. waxay ahayd sheekadii ugu xiisaha badneed ee aaladda social media 24 saac ugu dambeeyay si weyn dadku isku maadeysteen laakiin dhacdooyinka taxanaha noocaan ah ayaa u muuqanaya mid ku sii kordhaya aaladda social media sababaha ugu weyn ee dhacdooyinka taxanaha ah inay kordhaan ayaa waxa loo aaneynayaa 3 sabab waa mid koowaad qofka uu doonaya in horumar badan iyo magac iyo dhaqaale uu ka sameeyo aaladda social media oo hadda dadka inta badan ay ku soo yaaceen gaar ahaan aaladda YouTube-kaaga inuu kugu kaco oo dad badan oo macaamiil aad hesho saaxiibo badan ay kugu soo xirmaan ayaa waxa uu sameynaysaa wax walba sida dadka qaarkood ay qabaan halka dadka qaarkoodna ay ku raadinayeen aaladan si wax walba ugu sameeyaan waxyaabo kala duwan oo qayb ay ka yihiin horumarinta noloshooda iyo sidoo kale waxyaabo dhaqanka Soomaalida ka baxsan halka kuwa qaarkoodna aysan waxba lahayn muuqaalkan ayaan ugu talagalnay daawadayaasheena in aan ku xasuusino in muhiim ay tahay in si weyn loogu taxadiro aaladda social media isticmaalkeeda iyo weliba ka warqabkeeda iyadoo baadi dadkeena Soomaaliyeed ay noqdeen kuwa laga diiwaan geliyo rikooro xun marka loo eego aaladan iyo hanaanka loo isticmaalayo toddobaadkii hore ayaan baahinay kadib markii 2 gabdhood oo Soomaaliyeed ay isdhunkanayeen oo ay yiraahdeen waan isqabnaa kuwaasoo magaalada Muqdisho laga duubay muuqaalkaasi inkastoo markii dambe ay raaligelin ka bixiyeen ayna ku micneeyeen inuu ahaa baraangi sida ay yiraahdeen wuxuu ahaa baraangi aan ku sameynayna dadka ay ciwaan ugu dhigan mar dambe oo falcelintu ay ka yaabeen laakiin aaladda social media isticmaalkeeda ayaa dadkeena Soomaaliyeed badi u muuqanaya kuwa aysan ku baraarugsaneen aaladan khatarta iyo waxyaabaha dambe ee laga dhaxli karo marka loo eego haddii si xun loo isticmaalo aan loo isticmaalin hanaanka iyo hababkii loogu talagalay aaladan falcelinta ugu badan dadkeena ayaa waxay kala kulmaan muuqaalada aan loo fiirsan ee si laablakaca ah ee lagu baahinayo aaladan daawadayaal muuqaalkan maanta Jimcaha ayaan ugu talagalnay daawadayaasheen inaan kula wadaagno bugaheena gaarka ah YouTube-ka iyo weliba Facebook-ga si Soomaalida inta kale ay kaga taxadiraan dhaqamada noocan oo maalmihii dambe u ahaa mid aad ugu sii kordhaya aaladan la iska aqoon ama la daawado ee social media muuqaalkiina saaxiibayaal maanta Jimcaha wanaageentas